كرا diyaar marwo waad i weydiin kartaa aniga إيجدا عيارستا okay i weydii qof walba oo dhalinyaro uu ogyahay gabar adoo kale ah inay wax shukaansan karto waa sax wiilkan muddo 3 sano ayaa isla socotiin marka maxaa diida adiga inaa reerka u soo bandhigtid macnaha waxyaabahan waa waxyaabo iska caadiya marka way dhacaan maxaad uga cabsanaysaa waa caadi marka u soo bandhig saaxiibay waa runtaa aabbahay anigoo yar ayuu dhintay hooyadeena Soomaaliya ayay joogtaa meeshan waxaa lii keenay aniga inaan wax barto waxbarashadeedana hadeertan ilaa heer jaamacad ayay maraysaa lacagtana waxaa iga bixiyay aniga dumaashigay weligay waxaan u baahda ma weynin hal maalin xataa ma dareemin aniga inaan ahay gabar agoon ah aniga waxaan u noolahay sida gabdhaha aabbaha qabo kaleeto laakiin labada arrin maxaa iska galayna idageyso ma xasuusata wiilkan xilligan isbaranaynin waxay ahayd naga daayaqay ciyaarta 3 sano laga joogaa markaan jaamacadda bilaabayna isbaranay waan xasuustaa dumaashigay aad ayuu u faraxsanaa mana ahayn xilli shukaansiga ku habboon ma rabin dumaashigay inuu ogaado aniga wiil inaan shukaansado aniga weliba jaamacaddeedu wax yar iga dhiman tahay mana raba hadeertaan inuu ogaado waayo jaamacaddeeda 1 sano ayaa iga dhiman ma xumo midaas riyadeedu ugu weynaa waxay tahay dumaashigay cilmigoo isoo baray maalin uun asaga inaan wax ugu qabto وي مسؤول هاي ورن صاحب يورن سمونا أكثرين هاي ورن الحمد لله صاحب هاي عنها زقاب هذا وما سنتها اسمرتين هذيك واسكا مشغول صاحب حافظ لي جوجي ما شاء الله ورن هذيك الحمد لله عافمات كاغا وانا اسكفي عنها
xabiibti waan baxayaa waayahay hay isilaali haya bay soo dhawahay waan dhowahay hay qorxay way hay bye 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 waxa wili tahay sumaydii maalinta koowaad aan baranay wallahi in kuma fahmin kaliya marka tahay cabsi xishood saaxiibta marka la socotana geesiyada tahay adiga taleefanka marka ku hadlaysin aniga ba ka cabsanaya ya in adiga sidaas kula tahay waxaan sugi lahay inta xaaskay ka noqonayso wallahi billah adiga mustaqbalku macaanta alla munasar an abu aniga dumaashiga isoo wacay ka waran dhowr jeer nabadno dumaashiga maxaan u soo dhaxgelisaa aniga adiga marka sheekaysanayno waa ku baryayaa qeyfaan dumaashigay markaad maqashid maxaad u xanaaqdaa booska waalidka ayuu igu jiraa laakiin waalidkaaga ma ahan in munasar nakeen yaaqe cawadan ku soo wacaano waa wada sheekaysanaynaa nabadno adna ayuub ayaa raba inuu guursado maasha allah goormee ilaa ay hadda gabar ma hayo laakiin gabaraa lii raadi ayuu leeyahay marba hadduu qalbigiisa guur soo galay alxamdulilah baa gabar fiican lama weynayo waa la helayaa mid ayaan ku fikirayaa waa maxay ayuub baa wiil wanaagsan shaqaysta balwad aan lahayn ogow gabadhii guursadana kuma khasaarayso haa wallaahi aniga intaa ka aqaano waa wiil aad u fiican wuu wanaagsan yahay asiga ka waran haddaan sumaya ka dhigno qoftii guursan lahaa ayuub wallaahi waa fikrad fiican laakiinse gabadha waa la socotaa jaamacaday dhigataa dhib ma laha jaamacaddu waxyar ayaa uga dhiman ayadoo la qaban way dhammaystiran kartaa waa aragti fiican laakiin ma kula tahna adigoo kaligaa gabar Soomaaliyeed ayaa tahay waa nala saaxiibi kartaa waa saaxiib wax yar aan kula kaftamo dabeecadaada ma xuntaa adiga maya laakiin saaxiibo qaar kugu kalifay saaxiibtinimadaba inaad diidid sumaya soo bax waa sii baxaya markaan wada kulmeynaa munasar ayaa soo wacay sabab adigana taleefanka aad ka qaweysa ka waran wiilka iska cafin oo qof yahay asiga xanaaqsan dhehe adaan xanaaqsan ka war allah fiiri saaxiibay taleefankayga seelanta ayaa saaran hadda waa wixii soo baxna ka yaaqay galaaskan ka dahsanay soo soco hadda adna sumaya aawe fadhiga ma fadhisee qolkeeda ayay ku jirtaa maya munasar kaama yeelaayo midaas yaa waa waayana aniga sumaya ma soo geli karaana wax yar isugaya albaabkaa liisoo gargaraacay walaalka weyn soo gal waaw qolkaaga muddo ka hor ay ugu dambaysay isbeddel xooggan ayaana ka muuqda seeta caafimaadkaaga abaayo waan fiicanahay okay jaamacadda iga waran
si fiican ayay igu socotaa sumaya aadan ugu faraxsanahay waxbarashada inaadan ka caajisin laakiin waxaanu waa maanta hadduu aabbaha joogi lahaa xilligaa marwa ahaan lahayd haa allah u naxariista aabbahay wuxuu jeclaa gabdhaha xilli hore inay guursadaan ayaga laakiin gabadha jaamacaddeeda inay sii wadato wax dhibaataa ma lahan waan ogahay aabbahay maanta hadduu joogi lahaa igama yeeli lahayn laakiin haddeertaan dunida kuma noola wuu dhintay haa laakiin maanta anigaa booskiis kugu jira iga raali noqo waan ogahay booskiis ma buuxin karo laakiin ugu yaraan siduu jeclaa waa samayn karnaa kuma fahmin sumaya fiiri maadaama aan booskii aabba aniga kugu jiro waxaan rabaa inaad guursato siduu aabba jeclaa walaal laakiin jaamacadda waan ogaa inaad jaamacad dhigato sumaya laakiin adaluu qaba aad waxbarashada dhammaystiran kartaa ayuub waa wiil fiican waanu hubaa in uu ayuub haa waa ayuubka aan saaxiibada nahay si fiican ay u taqaanaa isaga ayaan kula jeclaaday haddii ay gabar weyn ii joogi lahayd meeshaan la jeclaa waaye hawalwelin wax qasaba ma jiraan haddii aadan rabin laakiin ka soo fikir walaal aniga ha u malaynin hadalkaaga inaan diidaayo adiga booska aabbahe ayaad iigu jirtay hal maalin ma dareemin aabbala'aan inay i hayso laakiin waxaa jira wiil xiriir naga dhexeeya haddeertaana ma rabin inaan kuu sheego maasha allah sumaya aadan ugu faraxsanahay mar walbana waxaan rabo waxaa arta ayaa ka muhiimsan maxaa yeelay waxaan ka hadlayno adiga mustaqbalkaaga walaashay walaal mahadsanid okay muxuu qabtaa warbixin iga sii bal wuxuu ka shaqeeyaa elektroni laakiin asaga ma lahan aabiis ayaa iskale okay walaashay ma xuma mar baad adigu qanacsan tahay inaan su'aalkaa weydii ma ahan ha ii imaado waan soo dhowaynayaa walaal mahadsanid yes waa ii gashaan ku dhahay halo ayaan cawada aniga aad ayaan u faraxsanahay dumaashigay ayaa cawada ii yimid wuxuu iga dalbaday aniga inaan guursado weliba munasarkayga saaxiibay beri ayaan kuu sheekaynaya haddeertaan munasar ayaa i sugaayo halow munasar familkayga waxay rabaan adiga inaad iga soo doonatid yaaqe adiga maan kugu cayaari karaana halo walaashay bilisi maha iga soo kicinin maxaa qaldanna xaq miyaana aniga walaashay wax walba inay iga qarsato macquul maahan oo haddaan ku fahmo walaashay waan kuu sheegi rabay laakiin waxaan sugaya xilligay ku habboon tahay idhegayso waxyaalaha iga dhaadhicinaysa inaa iga joojisid siduu weygahay abbaay ma ku tusaa mise waan kuu tilmaamaa ha ii tilmaamina marka hore i tuskeen aad muu qurxana laakiinse miska xumo goormuu kusoo doonanayaan 2 isbuuc kadib ninka shaqa asiga u gaar ah hadduusan lahayn aniga run ahaantii maba ka helaan ku dha cidiisana maba i qancinin walaasha ma bilowday caadi iska dhigno waan sii baxayaaye yiri wax ma kuu sheegaa ninka has ku jilcinin naaga jilcan manihin anaga هاي سمايا هاي ما صاحب. تعرف سوق موقدة حال حتى واسيح واي وركي سين هذا صاحبي صاحبي aniga farxadeeda lama soo koobi karo waa ku xiisaanay waan faraxsanahay sukaadi soo baxay markii si haa hooy macaan haa hooy si qurux badan ayay nagu soo dhammaatay arooskana 4 beri kadib ayaan dhiga rabnaa insha allah goorma imaanaysaana adigii abuu hooyo haddii ay caajisan tahay Stephen iska joog walaalle soo dir wixii akhbaar aniga kula soo socodsiinaayo haye hooyo macaan saaxiibe isdiyaari aniga munasara soo socono waxaan rabnaa alaabta inaad nala soo dooqdid war nooga leexa gaariga hortiisa dadka inaa wada la maxaa waay shit halo assalaamu calaykum walaal munasar see tahay waa axmed sumaya walaalkeed weeye ii waran caafimaadkaaga waan fiicanahay walaal waxaa yimid gabadha walaaladeed maadaama meherka beri u dhacayo waxaan jeclaystay inaan galabta kulanno marka xagee ku kulannaana ayada way ii soo sheegi kartay midda kale mar kasta markaad wax ii soo sheegaysid mareerkaad iga xigtaa adiga maxaa kaa qaldan caadi ma tahayna mid xasuusnaaw
adiga reerka gabar ayaad ka qabtaa anigana waan ka guursanayaa teeda kale xadkaada inaad ku ekaato waa muhiim mise gabadhan guursanaya ka xun tahay wax ii sheegay adiga xoolo maa tahay niyo hadda gabadha kula rabin markii hore miyaan ku siin lahaa aniga adiga ma aadan ii dooran ee iyada ayaa ii dooratay waan ogahay adiga inaad ka xun tahay mar horaan dareemay inaad isla rabto الباك وين قفرتان أروسكي نمت قلبتي ذا ينوبها أروسكي ما قاني مع صوت وانطينا إذا قصري معاكم ماشان قلبتي ذو كلي نوبها يعني ما فهم اسمي اليوم حكى قلبتي ذا نوبها كفوق حكى صوت ريش أقبل ولا هاو ماد ماشان منصر نينكا هدوكو يستسقى كوبان يا سقى لا تك ماشان ورسيدي أديكان إيدي وريدينا كان أسكع عليه هيدا فنيكا قلبتي ذا نوبها بحنا كتغنيو كم حلقة لنا ألعب محاوي وكبريا قلبتي ذا نوبها على صوص بحنا كتغسعوه waxaa soo kala gabar ka soo doonaa ka waran waa ebarkiisa leh emarkiis badan arinta fiir gabri adiga dhibaatada ku haysta maxay tahay ii sheeg nin kale ka fiican ayaa ilaahay ku sahla problemkii dhibaatada waa in iska yaraysa anagana madax anaga cumar walba gar ku mujir karnee maxaa dhacay wariyaa alaabtaana maxay ahayd hadalkaadina maqlay ahayd reerkan kuwa la heli kara maahan dumaashigeedaaba ogoleen in la guursada ka waran idhegaysi munasar hadda xilli xanaaqa lama joogo qarash ayaa ku galay waan khasaari karaa maahan ma laga yaaba gabadhaas inaan ku noqdo dhib socdaa tahay marka wax lagaa reebana ma aqbalaysid ma yeelaysid hadhowna waa soo cabanaya reerkaas haddii aan u taga xitaa inay iga yeelaan lagama yaabo waan khasaarayaad igu leedahay warsow aniga maa qofka khasaaraya waxay wax mataraha igara noqo baba waryaa idhegayso waad guursanaysaa weliba isla maanta laakiin waxaad guursanaysaa gabadha aan aniga kuu dooro haya aabe amarkaaga jira balse gabadhaas ma doonayo saqajaankiisa halow haa maxamuud waa kuu baahnaa xaggeen iskugu imaanaa okay waayahay anaa kuu imaanaya waxbaa ka walwelin haddaan kuu imaanaa okay waayahay anaa kuu imaanaya maxaa dhacaya isdeji adigisaan macquul maahan waa inaa isdejisaa ofo ayaan aaba macaan soo fadhiso haya aaba see tahay gabadheed waa la soctaa soo maahan gabadhii saaxiibadaada ahayd reerkooda munasar inay u diideen sax aabo aniga iyo mustafa dad asxaaba oo muddo wada shaqayna ayaan ahayn sax aabo familkuna waxay ku jiraan xaalad xun oo aanan ku fiirsan karin war bal u kaadi hadday ku jiraan ayaan waxaas maxaa ka galay anaga musalaqaas iska soo dhihin adiga gabadheedii reerkaas si kalgacayl ayay kaa soo doonteen anigana waan kula jeclaaday ka waran wareed adig maxaa kaa siiya ninka gabadhu guursa rabo waa ayaan saaxiibteed hadday tahayna ninka soo iyada ma soo yaa kuu sheegay inay soo xumeeyeen fadlan iga aamus gabadheed markaa la hadlaayo ayaan aabeedaday way saxantaa waa saaxiibtay waan oga saaxiibtaada inay tahay laakiin mid ogow gabadheedii saaxiibtaada arooska waxay u diiday familkeeda darteeda adigana in aad familkaaga dartiis u guursato gabadheedii maxaa diidayo aabba ishag bal aabba way u adag tahay laakiinse adiga dartaa waan u suubinayaa waa maasantahay gabadheeda ayaan haddaba waan kuu sheegay ninkaan hadalkiisa dhegaysanin naanaga aamus gabadha mustaqbalkeeda maxaa ku daba dhigay ma waxaa rabtaa guri inay ku joogto
war waxaas mustaqbal ma aha danaystaa tahay karaahiyow gabadha iga lugoynin naa waxaa ogtahay malaan islaanya xanuunsan gurigan edab ku joog haddaba ayaan aabba meel maa u socotay maya aabo haye aabbo haye waxaan riyamiyaa mase anigaa u maleey waan aamini lahay macquul maahan run waaye ka waran iga raali noqo Sumaya aniga awalba ninkaas waa jeclaay soo moogid laakiinse hadda aabbahay dartiis ayaan u guursanayaa aniga waan ku qasbanahay halo Sumaya abba hadartan kuma imaan karo aabba ayaa imaada weliba zaa'id u xanaaqsan wuu qaylinooyaa baryaan kuwa imaanaya insha allah see wax u dhaceen hadda ii sheeg bal haa waan ka xumahay saaxiibay baryaan kuwa imaanaya isdaji adiga ha oynin waa ku baryaa okay I love you yaa waan ku jeclahay hay macaanto nacasnimaan sameeyey soo maahana laakiin laga yaabay calafka aniga xaggayga inuu u jiray taleefanka maxaa ugu duminaysaa maa ka qabatid maxaan u sheegay hadartan taleefankan haddaan qabto aniga adigaba shalay markay kuu baahneed garabkeeda waad ka leexatay soo ma ahaa aniga ramitaankayga uma samayn waa ogtaa eedu soo maahan aabba dartiisaan u sameeyey waan ogaa aabbaha dartiisa u samaysay laakiin saaxiibtinimadeen inaa fiirisaa la rabay waxaan aad uga xumahay maalintii adiga farxaddaada tahay iyada murug ayay u tahay laakiinse aabbahay dartiisa waaye soo maahana na aniga waan ku aqaanaa adiga doqon ayaa tahay saaxiibtinimada meeshaas inaad ku burburiso looma baahnayn eed intee u socotaa waan kuu baahana anige qof walbeeto qofka u baahan yahay hadduu heli lahaa adba saaxiibta way kuu baahneed way ku heli lahayd soo maha baay marka abaayo maxaa inteena abaayo ayaan aniga taleefankayga ma qabanayso haye waxaan u malaynaa inay wax ku dhaceen ayada ayaan aadayaa abaayo adigaba xaaladaada caadi ahayne maxaa u baxaysaa abaayo aniga xaaladeedu waa iska caadi maxaa kuugu dhacay waxaan ayaan miya mise waa indhahayga abaayo maxaa ku dhaca gabadhan abaa maxaa dhacay munasaraa guursaday hadduu guursada maxay dhibay leedaha marka saaxiibteeda ayaan ayuu guursaday oo abaayo waxaana isku murjin markastay dhacaan koodhe isadkee abaayo niyaddaada khayr u sheeg abaayo waxaas wax weyn maaha soo kac baayo isadkee intee orde iyaaqay gabadha maxaa ku dhacay xaaladaada adee u wanaagsaneenbe hadday aanigii iwaashay waxaan ku hadlaamayaale daxadnimaday wiqaday kalsoonida kugu wakiishay hadday aanigii iwaashay yaa adna maxaa la oonaysaana munasir asiga wuu guursaday munasir ayaa guursaday ah ha guursada haddii uu doono ninkaas samay uma qalminba adiga maxaa kugu dhacayna jijilaacan muxuu yahayna ayaan ayuu guursanayaa hadda ayaantee musamay saaxiibteed isaga maxaa ka qaldanna maxaa dhacay axmed walaasheeda xaalad xun ayay ku jirtaa waxaan uma dulqaadan karto beliis wax lay samey adiga macanto isdeji anigaas unbay la hadlaaya beri beliis waa ku baryaa taleefanka iga qabo wax walba gadalayan ka saxina macaani waa ku baryaa hal mar la iga qabo shit sumay waa ku baryaa hal mar uu kaliya le taleefanka iga qabo wax walbana iga hagaajilaa mar le taleefanka iga qabo il badana
waan ku xumaa runtii midaan oo kale inay dhacda marabin balse waxaan jeclaan lahaa inaad taleefka hal mar iga qabato wax walbana waa hagaaji lahaa sumay waa ku baryaa hal mar uu kaliya le taleefka iga qabo maxaan sameeyaa dirtan maxaan sameeyaa cil badan ah waxay talo waa adduunyo anoo helkay ku mooday anoo ku walaashanaaye isna ku wanaajinaaye inaad waran ii afaysay wadkayga hadad qorshaysay waa waree waxayd sida tan adiga dhibaatada ku haysta maxay taane noloshaada maxaa sidan uu galaysaane waale yaab ani ma arkin ilaa hadal hadirtaan dhibaatada ku haysta maxay taane xaaladadan maxaa sidan ugu dhigaysaane nin kaloo ka fiican inaa hesha ayaa laga yaabaa noloshaada maxaa dhibaato ugu furaysaane idhegeyso tan ilaa ay xalay adiga wax maadan cunin hadirtaan istaag ee cadeeso oo ku baryaa meeshaan kacshaha cab nashaad isku yeel xogo mi fahanto ku barya ilaa hadal adiga waayo dee waa aniga dumaasho ee socod sidan loo baahna xogo wax isku dhan adiga hay iska warama dhigeys saxiib qoftaan aan 15 jeer in ka badan ayaan la hadlay ilaa ay hadirtaan ma ii jawaabuusan noocan adiga ay afahmay la hadal saxiibo dumaasho aniga waaba ka daalay wax aan ku sameeyay garan ma yaaqi hooyagtada ayaan eedaya maxaa waa sidan igaraale noqosmaya waan ogaa wax kasta waa calaf laakiin waa ka xumay in aniga sabab u noqdo waligii waxaan diidi jiray inaan madax hoos geyso laakiin maanta aniga sabab u ah walaal waa ku baryayaa dembiga dusha iska saarin dadkan ayagaaba iska xumaaba hadday nolosheeda ka baxeenna maanta aad ayaan ugu faraxsanahay okay haddii saas tahay waa maxay ilmadii indhahda ka socota sumaya walaal dhibaato ma lahan si uma jeedi saaxiibtii ayaan waxa ay igu samaysay dunida ayadaan u jeclaan waana ku kalsoonaa laakiin maanta kalsooni darre ayay igu abuurtay ninna way iga raacda laakiin dhibaato ma lahan qofkaad markasta xasuusan tahay waa qof agtaada ku weyn marka taas adiga gubaysahay iyada ma ahan walaasha iska cafi waaya walaal waan isku dayayaa okay sheekayda ayaan kaaga sheekaynayaa hadda ka hor intaan walaasha guursan ayay ahayd sheekadan waxaa jirtay meel aan shaqo ka rabay muddo ayaana kuna noqonayay meeshaas si maalinba maalinka ka dambaysa ii belimin jireen maalinkiin dambe shaqadii nin hal maalin imaaday ayay si weji garashaa u siiyeen runtii aad baan u cadhooday muddo ayaa raggaas caloosh wax uga hayay maxaa yeelay waxay ila ahayd shaqadaas ina aniga xaq u lahaa maalmo yar kadib shaqo kale ayaan helay laakiin tii hore ciilkeed weli ima dayn maxaa yeelay iyadaa mushaar badnayd balse bil kama soo wareegeen meeshii oo dhan dib ayaa ka kacay yaa haa dadkii oo dhan waxay noqdeen wax dhinta wax dhaawacma iyo wax khasaaro badan soo gaara markaas wixii ka dambeeyey waxaan bartay si wax looga sabro macnaha waxna looga tago markaas kadib waxaan noqday geesi wax kastana iska kaafi kara dhankiisa adigana waxaan ogahay oon aaminsanahay inaa geesiya tahay sumaya walaal iga raali noqo waxaan kuu ballan qaadaya madaxayga inaan hoos geyni waa ballanaan adiga kaa qaaday abaayo hadda kahor waxaad iga codsata asxaab inaan noqon hadeertaan asxaab ma noqon karnaana labadeena walaal iga raali noqo asxaab uma baahni sumaya i dhegeyso inaad iraaligelisid looma baahnaa aniga waan ku fahmi karaa dhibaatada adiga ku haysatana aniga hore ayay ii soo martay inkastoo dhibaatooyinka ay kala duwan yihiin balse xilli walbeed inaan garab ku siiya anigaa jecel sumaya garab haddii aad iiga baahda diyaar ayaan kuu ahay shit maladeeto munasar xagee ka imaaday maxaa kaa galay inaa habeenkii 8 saacad imaadid markii lagula hadlana aad caytantid waxyaabaas dhaqan kuuma noqonayaan fiir yarowga adiga kuu qasbay mar walba anigana wax ii sheegto teeda kale maxaa kaa galay xilligan soo kacaya xilligaa soo toosaya habeen walba oo ilaahay keeno naanana inaa ugu dhahda qasab miya waryaan casi anigii ma dhaadhaajin kartid yaa aabi hadduu ahaa lahayn arkluusta noocaag oo kale habeen xataa lama noolaa lahayn ugu midaas adiga doqonyo waaba intaas intaa fahmi laqday ani adiga aabbayaashan iskeenhayo waxa rabta samee waxa raba sameynaya horta adiga maxaa la calaasha waaba kula yaabay muwaalinta xagee gaadaysaa fariida taasina ku dhaarid soo maahan moogid miya sumeedan jeclaa maalin cad inaan ka dhaqaaqay adiga agteeda maxaa ka tahay haddaad iga tagi lahayd ducaan kuugu dar laha ka warnay naya lugaada hoostooda ka soco alkaluusta xun ayaa tahay sumayna aqliya lahayd markii adiga kaa tegaysay oofna calaa kugu taalo
not a very important anniversary as such, the 77th, that the ceremonies took on a certain considerable significance given what's happening. asalaamu calaykum gabadhayda. وعليكم السلام أبو شاحن كوكيني adeer maxaa kugu dhacayna? waxba adeer inaan baxa ayaan rabaa adeer sababtaad u bixaysa ii sheeg. adeer munasar dartiisa waaye munasar nin weyn iskama dhigaya habeenka xilliguu rabo ayuu imaanayaa inaan canaanta ayuu rabaa anigana qof weyn waaye 9 canaan lama daba taagnaan karo marka maxaan sameeyaa gabadhayda aadaan uga xumahay midaas wax yar bal soo fadhiiso waan wada hadlaynaa ii sheeg waxa jiro aad u bixayso waa mahadsan tahay adeer adeer macaan horta waxa dhacay xilli hore ayaa loo baahnaa inaad ii sheegto wax walboo dhacayna aniga ayaa mas-uuliyaddeeda iska leh sax munasar isagoo yar ayay hooyadiis dhimatay hay daryeelkii aabbanimo liiga bahnaana ma siinin ganacsigaygii howleyga iskaga mashquulay ma garatay anigana hadda waxaan rabaa jaanis inaad siiso waxaana kaa ballan qaadayaa wadda cad inaan kaa marin doono mar dambe suuquu soo xadgudbi waa ballan aan aniga kaa qaaday waa inaad fursaddaas siisaa صح adigana waa inaad isdejisaa anigana iga warsugtaa intaan go'aan ka soo gaarayo waa sax adeer munasar armiis inaan qariyo aniga mas-uuliyad ayaa iga saaran aniga asagana si fudud kuma kala dhamaanayno laakiinse asaga inuu ifahmaa aniga ilama ahan wax walba aan sameeyana ma ifahmaayo waan ogahay gabadheydii allaha khayr ku siiya adigana laakiin aniga igu daa inta dhiman anigaa dhammaystiraayo mahadsanid adeer hadduu alla ka raali noqdana waxaan ku tusayaa munasar inuu noqdo mid mas-uuliyaddiisa siday tahay uga soo baxo halo waryaa munasar hadda guriga igu maaw sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaad ii imaataa aabba dhibaato ma jirtane war baastar cunoo edab daran ayaa taa akhlaaq lahayn waryaa maxay tahay xashiishka iyo baktigaad annaga noo soo cunaysid waryaa baba nagtaas waxay kuu soo sheegtay ma aaminaysa adiga war naga fadhiisa afkaaga uraaha nugu soo taaginay waryaa xaaskaaga xataa sida loo ixtiraamo ma taqaanid aniga waxaan islahaa wuu isbeddeli doonaa markuu weynaado laakiin waxaad isbeddelaysa ma lahan maalinba maalinta ka dambaysa waad ka sii daraysaa idhegayso maanta laga bilaabo meelaan aniga taaganay kuguma arki karo xaaskaaga qab ha laguu biilo waad diidday shaqayso magaalada gal maanta kadib meelaan joogo kuguma arki karo ها abaayo waan soo socdaa wax yar kadibna waan kula joogaa hay iga tag dheh qofta ku soo wicaysa ayaan miyaa haa abaayo beliis waan ku baryaa teleefonka qabo maantoo dhan halkan ayay fadhiisay si ay kuu sugaysay intaan ka badan ha sii inqaabin saaxiibadaada waaye beliis abaayo waa ku baryaa naagtaas hadalkeeda iga dhaaf of yaaqi ninkan dhigaa irfoonka xagga u dhigaana mar walba khayr lee ma jiro maxaa kugu dhacay sheeg waxaan oo dhan waxaad u samaynaysid sumayo darteeda miya saaxib sumayo way kaa guulaysatay sidee laga guulaysan karaa reerkaada waxaa u dhaqan la-aday waa sumayo darteeda aabbahaaga waxa iskugu dhacdeen waa sumayo darteeda sumayana beritole nin ayay kaa raacaysaa adiga ma og tahay lagama yaabo ninaan aniga ahayn inuu guursado sumayo riyaa ku nooshahay saaxib muddo waxaad daba ordaysay jaamacadday dhigato ee iyada guriyay degan tahay mala socotaa baro ma og tahay maalin inay kula hadasho fursad ma u hesho iyada marka qofkaas maa guur ka rabtaa ii sheeg saaxiib war naga tag wax jira matiide ninaan aniga ahayn sumayo macalfa doono mid asugu
mustafa gabadhan haddii wax garan adiga ka mas-uula halo yaa dilayne oo waa ka xumahay haye yaa la dilay ayaana la dila baayo yaa dilay ninkeedaa dilay ay waan ka xumahay gabadhaas nolosheeda gacanteeda ku burburisay ma laga yaabaa imaasheen oo imaad darteed inuu ku dilay maya uma malaynayo abaayo maskiin walaahi gabadhaas maxay soo fiirinay gabadhaas intay ku qayaameen ka hor gabar fiican ay aheedee intee ayaana aadaa waa soo laabanaa maxay iigu quslaysaa saaxiibtinimo oo keliya maa la isku soo fiiriyaane doctores gabadhida ka waran ayaan miyaane runtii waa ka xumahay wax saasoo dhibaato ah ma ii jirto laakiin waxaan ka xunnahay dhibaatada iyada loo geysta haddana waa u geli kartaa gudaha ku jirtaa mahadsaneed aabbay garaan noqo saaxiibtay sumaya saaxiibtay وصدري حلا أغلاقيا وصاحبتي لله وأنا سبصرة أساسية وأسقيني ما بولشاوية Shit. البضاعة يا منصر أطمن أبو ما حسب يعني أبي عندي قلت لي